صحافتي سبب الله قرصون صحافتها قدر الله صدق الجدل هذا صحافتي سبب الله قرصون shirweynahani qaran ee lagaga arrinsanayay warbaahinta ayaa muddo 2 cisho ka socday magaalada Hargeysa waxaana soo qaban qaabiyay shirweynahaasi wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta haddaba shirkaasi ayaa waxaa maanta lagu soo xidhay magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay xubno ka socday xukuumadda mas'uuliyiinta ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier badiba saxafiyiinta dalka waxa halkaasi intii uu shirkaasi socday lagu falanqeeyay sida ay warbaahinta Soomaaliland halka ay maanta marayso kor looga sii qaadi lahaa haddaba ummad ma jirto haddii sharci laga baran xeerka maanta jira in wadaya ma qabo kan wali waa lagu kala socon haddii la fuliyo wax baa jiray oo caqli iyo cilmi iyo wadi jiray baa lagu dhisay kamaanta socdo ma arkin lagu dhisay qodobo ka mid ah in sheeg qodobka la dhigto qodobka saddexaad qodobka sideedaad qodobka labaatan koobiya labaatan ilaa shan iyo labaatan intaasoo filim ka xigta wuxuu ka hadlayaa anu soo arko cid wax maskaxdeeda ku jirta maanta ku saameynaysa jirta wuxuu ka hadlayaa ruqsadda loo bixiyaa waxaa maanta laga fikirayaa tiifiyada baa ina dhibay inaga qabto ruqsaddiisa wuxuu ka hadlayaa sidee ruqsadda looga noqdaa waxaa maskaxda lagu hayo garanaysaa in la qoray iyadoo maskaxda lagu hayo wargeysyada baa ina dhibay inaga cabriyo marka waxaan u baahnay in barnaamijyo badan dib la isugu celiyo idinkuna dib isugu celisaan xukuumadana la soo martaan diyaar baan u nahay inaanu idinla qaabayno marka arrimaha nabadgelyada ka hadlaysaan inaanu cid idin soo dirno saraakiil biliis oo arrinta aad iyo aad u taqaana rag wasaaradda maxaan ku dhahday daaqiliga ka tirsan odayaal hore maxaan ku dhahday sii jiray barnaamijyada tacliinta waan idin kula xidhiidhinayna wasaaradda maxaan ku dhahday tacliinta deegaanka marka waxaan doonayaa soo cusub kalsoonida dadka ay ku sheegayno ama ku qorayno inay la hubino ay leedahay iyo habkay u gudbayno midna isan qorya male wixii halkan dalo ee ummadda Soomaaliland dalo ee la isku ogyahay ee qofna aan loo sheegayn maanta ee ku horeysa qarannimadeeda oo isutaaggeeda ilaalinta sharafta sumcadda dalkeeda dasxad waa in horreeya ka saaray waxaa jeclaan lahay saxaafadooda kalsoonada oo yaanay noqon talaaqale tuntarkiisa isagoo hadda jeer soo tuuray waxaan la haysta annaga warramayna shaqada annaga haysanayna dibadkiina haysta ugu dambeyntii waxaa shirkaasi soo xidhay oo halkaasi ka akhriyay warmurtiyeedkii laga soo saaray muddada 2 cisho ee uu shirku socday wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo warbaahintu inay si mug leh ugu dhug lahaato kaalinta muhiimka ah ay ka leedahay horumarinta wadaniyadda ilaalinta qarannimada Soomaaliland horumarka iyo wada noolaanshaha bulshada reer Soomaaliland laba in si midaysan looga hawlgalo horumarinta tababarka dhawridda xurmada saxafiga iyo helitaanka dhammaan baahiyaha maqan ee warbaahinta reer Soomaaliland in aan si sharciga baalmarsan loo xidhi karin loona dhibaateyn karin saxafiyiinta ka hawlgala warbaahinta kala duwan ee Soomaaliland in warbaahinta Soomaaliland dhan uga soo wada jeesato suxufi kasta oo ku xadgudba qawaaniinta iyo akhlaaqiyadka warbaahinta Soomaaliland in la dejiyo dhamaystirka xeerka saxaafadda Soomaaliland iyada oo ay ka wada shaqeynayaan dhammaan bahwadaagta ay khusayso hawshan 6 in warbaahintu ay ciyaarto ama qaadato kaalinteeda ay ku leedahay horumarinta iyo ilaalinta af Soomaaliga waxa shirweynuhu xusay heerarka kala duwanaa ee ay soo martay warbaahinta Soomaaliland iyo heerka ay maanta marayso waxay aqoonyahanka shirweynaha ka soo qayb galay isla wada qiraan in warbaahinta Soomaaliland ay samaysay horumar la taaban karo isla markaana ay jiraan caqabado u baahan in la waajaha inaan saxaafadda Soomaaliland ku mashquulin baahinta arrimaha siyaasadda oo kaliya ee qaadato doorkeeda la xiriira baahinta arrimaha bulshada
ka wacyigelinta bulshada ee arrimaha qabyaaladda iyo la dagaalanka idinku mukhaadaraad baa qorteene maandooriyayaasha iyo dhaqan xumida ugu dambayn in warbaahinta Soomaaliland aanay fursad siin cid kasta oo waxyeello u geysanaysa wadajirka bulshada nabadgelyada iyo qarannimada Soomaaliland gudo iyo dibadba warmurtiyeedka waxa soo wada saaray wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo labada urur ee loo kala yaqaan Solcha iyo Wicha ومحمد حسين إبراهيم زم نيوز تي في مقالة هرقيسة.